barasho wanaagsan waxaan suldaanka beesha warday ayaan aad baan ku soo dhaweynayaa waxaan u maleynayaa saaka shucuurta meeshan taagan jaceelka lagu qabaa lagu sugo halkaas waxaan naga gudoomaysaa salaan 14 quraanka cadii horta naga gudoom waxaad ku soo dhawaanaysaa dadkaadii iyo dalkaadii iyo diintaadii ee ku sugaya ilaa dhowr sano soo waanaysaa waxaan rajaynayaa jiida maanta ninka ka bixin lahaa dhiiqada inaad noqotaan ku soo dhaweynaa wixii lagu doortay in jiida safari wajis inaad sameeyay sida laga rabaa dhibaatada ku jirto inaad ka bixisaa laga rabaa anakan garabkaaga nahay dib intaasaan ugu filan wax maanta halka aan ku koobi karo ma aha suldaanka haday ku soo dhoow tolkaagu way waxa meesha dhooban waxa meesha ku dayacan dadkaagu way dadka lagu doortay way ugu dambeyntii waxa kulanka ka hadlay suldaan Kaday Suldaan Xasan Guudle oo ah suldaanka guud ee beesha jiide tan waa soo dhaweynta hajar iyo sanad Allah idinka siiyo jiida safari wajis udabi afaaf على مسارك وادمي هدي إلهي اللي جهله هدي إلهي اللي جهله على مسارك وادمي هذا وأنا بس كنوجن سيساك صلاة هبين ما نصوب هنواي هدي إلهي اللي جهله جيد وان كبلن قاضي قبل ده وش هو يدي بته هذا ما صرت وش قبل جيد هدي يصير ترواسينا هدي جيد ترى أو كرسي ترى وش أدام كودي من السودان بدل ما تيسي هدي ترى وش نواتنا جيد قبصة هدي واتنا ويا اللي قات هذا الكائن وادمي على مسارك أما بري أما سعادة ما دان والدين سو ورجلنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ساساسكم نادي لا يلقى maalmaha soo socda ayaa la filayaa in munaasabad lagu caleema saarayo suldaanka guud ee beesha jiide Suldaan Kaday Suldaan Xasan Guudle lagu qabto magaalada caasimadda ee Muqdisho taa oo la filayo inay ka soo qayb galaan waxgarad siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay qayb ka yihiin dhaqanka beelaha kala duwan ee Soomaaliyeed Xasan Kahye Som News TV Muqdisho